asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa 6 arrimood oo dhib kastaba qof kasta oo islaam ah oo haysta dhibaato 6 qodob haddii ay sameeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dulqaadayo. sida aynu wada ogsoonnahay koonkan aynu ku noolnahay waa imtixaan, waxaana loo keenay in nala ku imtixaamo iyadoo nala ku fiirinayo midkeenna camal wanaagsan sameeya. qof walbana dhibkiisa khaas ah ayaa haysta. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jirto cid uu ugu cadaabayo amaba uu ku dhibayo dhibaatada tan, laakiin waxaa xasuus iga mudan in wax walba oo adiga ku haysta oo dhib ah khaas ah ku ah in ay tahay dhibaato aad adigu gacantaada aad ku geysatay. waayo ilaahay waxa uu yiri qof bini aadan oo aanu ku ciqaamayna adduunkan ma jirto ilaa iyo wax uu asagu gacantiisa ku kasbaday mooyaane, kuwa badanna waanu u dhaafnaa. haddaba waxa aan halkan kugu xusuusinayaa walaal in dembi kastaba ayadana toobad lagu qaado. dhibaato kasta oo adiga ay ku haysatana ay tahay dunuub aad adigu kasbatay. haddaba waxaa inoo bilaabayaa qodobadeennii. qodobka ugu koreeya waxa waaye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga dulqaadaya dhibaatooyinka inaad u sabarto. الصبر sababtoo ah sabirku waa shay aad u muhiim ah, qayb lixaadna kale diinteena suuban. haddii aad u sabarto ilaahay subxaanahu wa tacaala u xisaabsato dhibaatada adiga ku haysatana ilaahay wuu kaaga qaadayaa dhibaatadaas. midda labaad waxa waaye quusasho la'aan, in aadan quusanin oo aadan ka quusanin ilaahay raxmadiisa. waayo ilaa raxmadiisa waxaa ka quustaa dadka aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminsanayn ee kaafiriinta ah. haddaba mar walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala aamin. dhibaatadan ku haysatana ku aamin inuu yahay tahay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga uu kugu imtixaanayo, adiga oo u sabrayana rajaynayana ilaahay wanaagiisa. midda saddexaad waa sadaqada. sadaqadu walaal waxa ay qaadaa dhammaan culeysyada dushaada saaran, haddii ay tahay xanuun, haddii ay tahay faqri, haddii ay tahay madhalaysnimo, wax kasta oo dhib ah oo ku haysata sadaqadu waxa ay kaaga noqotaa walaale busbuuxis. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uu noogu faral yeelay in aanu sakada bixinno, in ilaahay uu noogu fududeeyo. haddii ay tahay in ay noogu zaa'idayso hantidayadu, iyo haddii ay tahay in ilaahay nooga dulqaadayo dhibaato walbaba. midda afraad waxa ay tahay walaal istikfaarta. markastoo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka toobad aqbasho oo ilaahay aad istikfaar weydiisato, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaa rifcinayaa dhibaatooyinkaaga ku haysta. waayo istikfaartu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yiri ma cadaabayno koonkan, dadka ku cadaabi mayno inta ay istikfaarsanayaan. ilaahay marnaba adduunyo iyo aakhiraba kugu cadaabi maayo adiga oo dambi dhaaf ka dalbanaya. istikfaartuna waa shay muhiim ah. midda shanaad raalli noqosho, in aad raalli ku noqoto dhibaatadan ku haysataa. sababtoo ah waa imtixaan, adiga ayaa lagugu imtixaamayaa. ilaahay kuuma uu waayey nasri, balse wuxuu uu fiirinayaa ilaahay adduunkiisu sida uu ula tacaamulo dhibaatadan. waayo adduunku oo dhan baa wuxuu yahay dhibaato soconaysa. marka waa in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u xisaabsataa oo u sabirtaa oo u dulqaadataa oo u istikfaarsataa oo aadan marnaba u quusan oo aad raalli ugu noqotaa dhibaatada uu ku saaray. midda lixaad waa ducada. in aad ducaysataa walaal adiga ayay muhiim ku tahay. sababtoo ah ducada waxaa lagu qaadaa dhibaato walba, waxaa lagu rafciyaa musiibo walba, waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga qaadayaa balaayo walba oo ku haysatay haddii aad ducaysato. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uu ku yiri aayad qur'aana barya aniga ayaa idin ajiibaya, adcuuni astajiib lakum. marka waa in aad baridaa markastaba ilaahay sida uu kaaga dulqaadi lahaa dhibaatada tan. waa in aad markasta aad salaad tukato iyo markasta aad wanaag samaysaba gacmaha kor u taagtaa, aad tiraahdaa yaa rabbi yaa raxmaan iga dulqaad dhibaatada tan.